ninkani waa tuugsade maalqabeen ku noqday gacan hoorsiga. Dawarsiga ayuu ka helay $2 milyan oo uu ka dhistay guryo qaali ah si uu lacag u helo milicda qorraxda, qabowga iyo dhibicda roobka ayaa korkiisa ku dhamaaday 25 sano ee la soo dhaafay. Warbixintan ayaan ku dul istaagi doonaa dadka tuugsiga ka taajiray qaarkood. Si aad uga bogato like saar bogga Maxamed Muuse Tarsan, siina faafi muuqaalkan. Mahadsanid. Tuugsiga ama dawarsigu waxa uu Hindiya ka yahay shaqo caadi ah, waxaana ka tuugsada dad hanti badan haysta, taasoo ay ka tabcadeen xirfadda gacan hoorsiga. Inkastoo bulsho saboola ay u badan yihiin Hindidu, haddana taasi kama dhigna inay dunida ka baahi badan yihiin, balse kororka dadka ee bilyanka kor u dhaafay ayaa ka dhigtay dal tuugsadayaashu malaayiin ay noqon karaan. Jidadka magaalooyinka Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad iyo Calcutta waxa buuxiyay dawarsadayaal qaarkood 30 sano tuugsanayeen oo doonaya qadaadiic ka mid ah lacagaha ku jira jeebabka malaayiinta maalqabeennada iyo masaakiinta isugu jira ee toobiyaha qaadaya har iyo habeen. Waalidiinta oo dhammi waxay jecel yihiin xirfad sharaf leh oo lagu ixtiraamo carruurtooda. Ma jiro qof ku riyoonaya riyooyinka xunxun oo doonaya inuu maalin uu laamiga gacanta taagto. Waxaase jira shakhsiyaad tuugsanaya oo ladnaan qaba, kuwaasoo doonaya inay darajooyinka sare ee dunida mustaqbalka ku raaxaystaan, halka ay laamiyada ku sugan yihiin xeeldheerayaal naxariis badan oo doonaya inay caawiyaan kuwa waayuhu ciileen ee garab qabashada u baahan. Bharat Jain waa 49 jir xirfadle ku caanbaxay tuugsiga. Siduu u taagnaa boosteejooyinka dadkana gacanta ugu dhiganayay ayuu caan ka noqday laamiyada Mumbai ee gobolka Barel ee dalka Hindiya. Ninkan sawirro iyo muuqaallo badan lagama hayo, balse xogtiisa ayaa ah mid sugan oo ay daabacday Times of India iyo wargeysyo kale oo India ka soo baxa. Waxa uu diiday in laga duubo documentary muuqaal ah. Bharat Jain isagoo 16 jir ayuu bilaabay dawarsiga dadweynaha, markaasoo uu saboolnimo awgii uga soo fogaaday la noolaanshaha waalidkii. Waxa uu ku baryaa jidadka Mumbai ugu yaraan 6 ilaa 10 saacadood maalin kasta. Qiyaastii wuxuu maalinkii tuugsadaa $250, taasoo isu geyn bishii noqonaysa $7,500, waxayna ka badan tahay celcelis ahaan mushaarka uu qaato taliyaha guud ee ciidamada Hindiya. Arrinka kale ee yaab kale ayaa ah in Bharat Jain uu yahay mulkiile faraxsan oo leh 2 dabaq oo ku yaal magaalada Mumbai, kuwaasoo ku fadhiya $1.5 milyan oo dollarka Mareykanka. Waxa uu leeyahay dukaan ku yaal faras magaalaha Mumbai oo uu ka kireystay ganacsade cabitaanada sameeya. Isugeyn hantidiisa maguurtada ayaa lagu qiyaasaa $3 milyan, taasoo ka dhigtay tuugsadaha ugu taajirsan Hindida, sida laga soo xigtay 2 sano ee la soo dhaafay sahmin uu sameeyay dhakhtarka lagu magacaabo Rajadin. Inkastoo waaye adag iyo waqti ciriiri ah uu ku wajahay wadooyinka Mumbai, hadda waa maalqabeen maamulanaya hantidiisa. Waxa uuna mid ka mid ah guryihiisa qaaliga kula nool yahay hooyadii, aabihii iyo walaalkiis oo mar waayuhu ay kala geeyeen, kuwaasoo ay weheliso xaaskiisa iyo 2 wiil oo kala dhiganaya fasalka 10aad iyo fasalka 12aad ee dugsiga sare. Simon Wright waa mid ka mid ah magacyada ugu waaweyn ee lacagta badan ka tabcaday tuugsiga. 59 milyan ayuu ka sameeyay xirfadiisa dawarsiga. Dowladda Ingiriiska ayaana gebi ahaanba ka mamnuucday gacan hoorsiga markii maxkamadii ay xukun ku riday. Isha waa haweeney 80 sanadood ka tuugsanaysay waddanka Sacuudiga ka hor intaysan geeriyoon iyadoo 100 sano jir ah, waxayna ka tagtay hanti ku fadhida $1 milyan sida ay sheegtay dowladda Sacuudigu.